kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan asxaabta akhyaarta ahbaabta sharafta iyo karaamada ciidada mudan caalamka meel walba aad ka joogtaan iyo xilli walba oo idin tahayba waqtiga ha idin wacnaado waayahana ha idin samaado waa walaalkiin Cabdiwahaab oo idin leh maalin kale iyo muuqaal hor leh aad baad ugu mahadsantihiin soo dhawaada gambarada soo dhaweysta inta hore inoo joogtay kamid ah fadhiyeynta sariicaad dadka jilbaha u soo dhigtay channelka heerkan soo gaarsiiyay aad baad u mahadsantihiin inta dib inooga soo biirtay oo hadda baska soo fuushayna aad bay u mahadsan yihiin inta soo socoto roog casbaan u dhigi doonaa waana soo dhaweyn doonaa hadduu ilaahay raali ka noqdo channelka waa la wada leeyahay cid gaar u leh ma jirto oo Soomaaliya oo dhan oo u dhaxeeya insha Allah waxaan rajaynayaa mid samaha ku asteesan inuu noqdo channelka wanaagana lagu faafiyo xumahana lagaga reebo amaba lagaga waaniyo walaalaha markaasi qaladka ka dhaco anagana hadaa qaldanno dadka nasixi lahaa waa idinka gacantiina ayaad nagu sixi kartaan waxaana mar walba aan rajaynayaa fikradihiina quruxda badan iyo saliimka ah in aan qaadan doono laakiin waxa iga dardaarana maadaama aynu nahay dad walaalo ah maadaama aynu nahay dad wanaagsan oo qalbigooda wanaagsan yahay oo nool oo Soomaalinimada ay wali jirkoodii ay ku jirto waxaan rajaynayaa markii aan muuqaalada qaar soo dhigno aniga ma iigu daneynaysid adigana ma iskugu daneynaysid walaalka ugu duceey in ilaahay ducadaada u aqbalo ayaa suurtagal ah hadaa doontid ha soo qorin qoraan laakiin qalbiga uga duceeya aan isgarab taagnaano aan isdhiira gelino maanta waxaan idin hayaa hadal farxad leh hadalkaas farxad lehna waa walaalkeen idlayare ducadii aan u duceynay inuu ilaahay subxaanahu wa ta'ala u aqbalay oo alxamdulillah aanu taaganahay maanta waxaynu nahay dad walaalo ah waxaynu muujinaa amaba aan marmarka qaar isku muujinaa inaynu nahay dad walaalo ah waxaynu isku muujinaa marmarka qaar inaanu nahay dad Soomaaliyeed oo jinsiga oo mideeyay waxaynu muujinaa in aynu nahay dad xanuunka gaara isku damqado Soomaalinimadana ay wali jirkooda ay ka yaani ku jirto sida ay ka warwadaysiin ilayar xaalad adag ayuu galay ilaahay ayaa mahad leh waxaanu leenahay ilaahay ha uga dhigo dambi dhaaf intii soo martay maanta waxa uu dib ugu soo laabtay amaba uu dib ugu soo noqday qosolkii iyo farxadii iyo kaftankii aynu ku naqaanay ilaahay idinkii waxaana u rajaynayaa biidnillaahi alkariim in uu noloshiisa sida uu hadda aan ka dareemi doono ama muuqaal ahaan aan idinku horkeeni doono si ka sii wanaagsan inuu mar walba ahaado waan idin sheegaa xaaladda uu iidle wajaho waa xaalad runtii ayna dadka qaar ayna wajihi kareenin marka horta waxaan doonayaa in aan muuqaalka indhihiina ugu raaxeeyo kadibna waxaan ka dhihi doonaa xagga dambe ayaan ka dhihi doonaa bal marka ugu horeysa muuqaalka bal daawasho wacan marka عادة قف هديد لو عمل وصبوا ما شاء الله isaga iyo mursal ayaa wada tagnaa waana meesha ay wada joogaan Nairobi Kenya weeyaan sidaas darteed waxaad arkayseen isaga oo qoslayo mursalna waxa uu ku sugan yahay waqti dhow waad aragteen oo isaga iyo walaalkiisa Damkayow waxa ay wada joogaan labadoodiiba Kenya ayay wada joogaan marka sidaas darteed waxa cadeen cad idin ah dadka qaar ayaa ku dhahayaan muuqaalkan muuqaal hore ayuu ahaa sidaas darteed ayaan idinku faahfaahinayaa ama aan idinku sheegayaa waxaana idin hayaa oo run ah in walaalkan caafimaadkiisa alxamdulillah uu taagan yahay maanta inuu maanta uu taagan yahay meel fiican marka ilaahay waxaan uga baryeynaa inuu sidaas ka sii fiican gaarsiiyo isaga keligii maahan isaga iyo qof walba oo muslim ah oo Soomaaliyeed oo maanta dhiban dadku waa la kala dhib weyn yahay horta dadku iska dhibaataysan yihiin Soomaalida ilaahay ha ka wada dul qaado laakiin waa la sii kala daran yahay waxaana Allah subhanahu wa ta'ala ka rajaynaynaa isaga iyo dadka la midka ahba inay caafimaad sariica Rabbi subhanahu wa ta'ala oo siiyo oo degdegna uga soo dhigo intaas kadib iidle noloshiisu waxa ay ka duwan tahay nololaha dadka qaar sababta oo ah waa aabe la daala dhacayo amaba garabka iyo guntaba u xirtay in uu ciyaalkiisa barbaarsado maanta wax uu inooga baahan yahay ma jirto intuu meel soo fariisto waligiina ma oranin wax itara i kaalmeeya oo i gargaara oo i garab istaaga waligii ma oran ilaa i duca mooyaane ducada ayuu mar walba ahaa qof ku kalsoon oo runtii waxyaabaha oo inala wadaagi jiray sababta oo inala wadaagi jiray waxa ay ahayd in duco يعني ku helo waxyaabaha ugu daran runtii maanta oo yani marna intuu ka soo caafimaado marna ay ku soo kacayso waxa ugu weyn waa burada waxaana ogtihiin dad badan oo isaga la asxaaba ayaa jiro dad badan oo isaga u dhow ayaa jiro dad badan oo markii uu caafimaad qabo garab taagan ayaa jiro oo inta ugu badan
ay joogaan dalal horumarsan sidaas darteedna aysan weli qalbigooda iyo maskaxdooda ku soo dhicin in ay wax u qabtaan inay isku tagaan oo ay taageeraan oo ay intay calal aqal xataa geeyaan wadamadan Yurub amaba wadan kale oo caafimaadkiisa wax loogu qaban karo ay wax u qabtaan waxa ay sugayaan oo kaliya inuu yiraahdo wax ii qabta waxa ay sugayaan oo kaliya inuu yiraahdo wax itara waxa ay sugayaan oo kaliya inuu yiraahdo waxaan doonayaa inaad ii garab istaagtaan laakiin garashadii maanta waxa aad moodaa inay aad inoogu yar tahay maanta waxaad moodaa in garaadkeeni oo sii daciifayo oo godna ku sii dhacayo qof walbana ay doonayso in aad is hoos dhigtid kadib hadii ay wax ku qaban weydo xitaa ay maalin un kaaga dhigto waxa ay kugu caydo waxa jirto oo kale maanta qof ayaa waxa laga yaabaa in uu u dhibaatoodo halkaniin oo ku caafimaadayo beritolsa waxa lagu aasayaa 10 geela iyo wax ka badan oo halkii geelana uu yahay $1 iyo wax ka badan waxa uu qofka anfacayo maalinta uu asiga ku baahan yahay inaad garab istaagto oo aad u muujiso qofka aad tahay oo aad u muujiso qofka inaad tahay walaalkii oo aad u muujiso inaad tahay garabkiisa oo inaad u muujiso waxyaabo badan oo markaas uu ka filanayo si beritole xitaa hadii qadar u timaado oo qofka uusan u dhimanin ama u waxyeeloobin isagoo shalay qabo isagoo ay naftiisa leedahay kuma wax ku taray kuma wax ku qabtay waa ay kugu daawadeen hadda maanta alxamdulillah waa uu taagan yahay laakiin waxa idin sheegaya buraday in maskaxdiisa wali sida ay ugu taalo taasna yani jaaniska ugu dhow maalintii uu tagay ama Kenya iyo wadamada Uganda ma ahayd mid uu intuu tagay ayaa waxa lagu yiri waa 50-50 waxa uu doortay inuu ciyaalkiisa noloshooda uu riski gelinin sidaas darteedna uu isaga la daala dhaco xanuunka markaas hayo ee xagga maskaxda ka hayo ee burada ah sida dadka ay asxaabada ama dadka aad ugu dhow ama xitaa isaga ofkiisa oo inooga qirtay waa nin horta runtii adkaysi badan waa nin runtii wax kasta oo dhacaan ciyaalkiisa uu soo dhabar adeegay waa aaba dulqaad xaqiiq ayaan idin sheegaya aanu maanta xaggayga markii laga eego waxa uu iidlo ku jira aabooyinka ugu wanaagsan dunida oo xaq u leh in ay aaba noqdaan dadka qaarna waxaad arkaysaa inaysan xitaa awood u lahayn ama aysan awoodeyninba in ay ciyaalkoodii ama nafaha ciyaalkoogii ay raali geliyaan isagana waxa uu naftiisa khatar u gelinayaa sida ay ciyaalkiisa mar walba u ahaan lahaayeen kuwa farxad ku nool kuwa reerayn ku nool kuwa qanacsan kuwa nolosha qaanic ku ah waxa ay rabaana inuu hoos keeno ayuu isku dayayaa isagoo aan mar walba ku aragna social media isagoo ciyaalkiisa qancinayo ilaahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan uga baryeena inuu cimri dheer u siiyo inuu caafimaad taam u siiyo ciyaalkiisana inuu ilaahay la garab galo oo la koriyo dad badan waxa ay kugu qabsanayaan markii aad wanaag qof ku taageerto waxa ay ku dhahayaan waxa aad ka badbadinaysaa waxa uu qofka yahay xaqiiq waxa ah in qofkan idla yari iyo dadka qaar aan amaanayo inay yihiin dad u qalma in la amaano waa dad u qalma in la amaano qofka bini aadamka waxa uu yahayna lagama xaqiro inta xun waa ay xun tahay waan asturi doonaa inta wanaagsanna wanaagooda ayaan ku sheegi doonaa maadaama maanta ilaahay ducadeena aqbalay mar labaad ayaan idin ka codsanayaa inaad si niyada ugu duceysaan sidaad adigu u jeclaan lahayd in lagu duceeyo ugu duceeyo walaalka ugu duceey qof walba muslima oo dhibaataysan si adiguna ay malaa'ik kugu duceyso adigu ducadaada inay aqbal noqotaa waa rajooyin aad iskaga yar laakiin ducada malaa'ikta waa aqbal sidaas darteed u duceey walaalka si adiguna malaa'ikta ay kugu duceyso aad baad u mahadsantii reer sariicaad fiidiyoga la gareeyay share gareey waxaan rajaynayaa dhammaantiinba inaad farxad iigu noolaataan intaan muuqaalkan mid xiga ku kulmi doonana waxaan idinkaga sii tagayaa fi amaanillah